ها إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkaa taasiyad uga diraynaa dadkii shalay daraa lagu xasuugay magaalada Gaalkacyo dhinaca Galmudug dadkii lagu xasuugay oo lagu laayay baanu taasiyad u diraynaa intii dhimatay la Allah u naxariiso intii dhaawacantayna Allah aafiyo eheladoodina samar iyo iimaan Allah ka siiyo haddii arrinta arrin foolhun weeye arrin maanta Soomaali ay u baahan tahay maahan Soomaali wixii dagaal sokay iyo dhibaato wixii ay soo mareysay waa soo martay waxa u haray ma lahan say ila tahay wax dhibaato dagaal iyo dagaal sokay iyo reer hebel iyo wixii la soo maray waa la soo maray hadda in dib looga celiyo oo waxyaabo in noocaas la sameeyo waa arrin nasiib darre ah weeye dawladda Galmudug dawlad weeye maamul goboleed weeye maamul goboleedka waxa laga rabaa haddee ninka hadduu dawlad meeshii ay jabhad ma ahane dawlad hadday meeshii ka jirto idii dhibtaasi samaysay in si dhagsale loo soo qabto sharciga loo horkeeno dhibaatada kale oo jirta waxay tahay hadda digil imarafla al-shabaab ma ahan al-shabaab hadda idda ma aragtay digil imarafla al-shabaab ku saxiinaysaan la yaabay war al-shabaab Soomaali kaliya hatta ma ahan waa urur weeye urur oo inta bani aadan ah oo nool adduunka qof ay ku jirin ma laha haddii meel wax ka dhacaan hadda qof shabaab ay wax geysto digli maraflo weeye digli maraflo waxa al-shabaab dusha looga saaray taas anu waa garan lahay ma garanayo arrintaas meeshay ka timid dadka arrimahaas oo kala sameynaya la weydiinaya arrintaas waa arrin aad iyo aad ma aragtay aan ugu xunahay weeye hadda dawladda Galmudugna waxa laga sugayaa jawaab degdeg ah arrinta inay ka bixiso ay wax ka qabato hadda dawlad buu weeye dawladda waxa laga rabaa wixii dhibaato noocaas ah dhoweydii ma aragtay dhibta ka dambeysay bay soo qabataa sharciga hor keenta wixii waajibaadkii isagu leeyahay bay marinaysaa haddii arrintaasi dhici weyso hadda waa arrin ma aragtay nasiib darre weey taasina taasaan leenahay tan kale toode Soomaali weey dalka ma kala laan dalka Soomaali weeye dalka ma kala laan nin walba meel alaalo meeshu isagu ku nool yahay oo marka uu degan yahay buu dalka kaleeyahay dalka Soomaali dalka ma kala lahan haddii dalka la kala sheegto meel badan oo hadda la wada degan yahay baa laga guuraya Soomaaliya dalka ma kala lahan dalka waa wadaagta dalka waa naga dhaxeeya dalka in la iska sheegto ma ahan ninkii aad gurigaaga ku jiro oo degan aan meesha guri kale aanu adigu marti ku ah inaad laysido dishaan oo dhibaataysan hadda taasi waa horta nasiib darro weey idii waxa sameeysan hadda waxaan u arkay kullayba waa dad isma iyo wax garad iyo Galmudug waxay leedahay salaadiin iyo isma iyo ulmaadiin iyo dad madax oo wax garanaya bay leedahay arrintaas hadda wixii kaga jawaabi lahayn iyagay u taala koonfur galbeedna waxaan leeyahay koonfur galbeed hadda odayaal baa ka hadlay oo waxay yiraahdeen Puntland iyo Galmudug baa dadka reer koonfur galbeed lagu dhibaateeyo Puntland anaga joogno lagu ma dhibaateeyo reer koonfur galbeed dadka ka soo jeedo oo reer Puntland lagu ma dhibaateeyo lagu ma laayo lagu ma hasuugo dal muwaadiniin Soomaaliyeed dalkooda degan weeye oo kii ganacsi waysta kii hamaaliha waa hamaasha kii shaqaysanay waa dad Soomaaliyeed oo meeshay doonaan maray wax doonaan ku hadlayo oo dalkooda joogo weeye oo dalkooda degan dhibaatadaasna hadda Galmudug bay ka dhacday in ma aragtay hadalka sidoo yahay loo sheegaa fiican in hadda odayaasha wixii xagga ka soo higaba hadda inay hal dawlad isku yihiin haday u qabaan kuma darin ma ahane waa laba maamul bay kala yihiin Puntland iyo Galmudug bay kala yihiin waa laba maamulkaasi baa hadda dhibta ka dhacday
Puntland wax dhibaato kama liin digil mirflaha joogana waa ku dhagan yihiin dhibaato ma qabaan nabad bay ku qabaan id maanta maaragtay wax dhib ay u geysanaysa ma jirto horeyna ugu maarag haddana kama sugayno meesha wax ka dhaceen waa golmudugna waxaanu leenahay hadda golmudug ay warba laga sugaya dadka kaas wixii lagu laayay idii laaysi in shariga hor keento oo nidaamkii dawlad lahayd aad soo mariso waa lagu qanacaya markaa anagu taasaanu leenahay intii dhimatay Allahu nariiso ehladeedana samri iimaan Allah ka siiyo anigu waxaan kamid ahay odayaal dhaqameedka ama malaaga digili mirafle ee Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal baana asalkayga waxaan ka soo jeeday koonfur galbeed laakiin hadda waxaan ahay nin muwaadin reer Puntland baan ahay Soomaaliyeed dalkiisa joogo dalkana idigama lahan id maanta maaragtay xoog ii sheeganaysan maarag hadda kama sugayo marka malaaga digili mirafle gobolka Nugaal baan ahay magacayga Malaaq Khaliif Maxamed Axmed baa la yiraahdaa anigoo magacayga Nibadoon Ugaas Maxamed Aadan Ali oo magaca digili mirafle aan ku hadlaaye inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhacdadii ka dhacday gaalkaaya dhanka galmudug waxa u taasiyeynaya dadkii meesha lagu laayay dadkoodii qaraabadoodii ehelkoodii higtidoodii iyaalkoodii baan u taasiyeynaya taasiye ka bacda dadkii dadka hasuugay oo galmudug ahaay galmudug waxaan u qabnay dad maamul goboleed oo dawlad oo dhaqanka dawladaha leh dhaqanka maamul goboleedyada leh wixii dawladda istaamaasho oo wixii dambiile soo galo oo sharci leh oo maxkamad la kor keenaya dambiilaha xirayso qof aan dambi lahayn iska ilaalinayso baan u qabnay haddeerna waxa iigu muuqata dhaqan jabhadeed dhaqankaas haddeer meesha ku dhacay dadka lagu sameeyay dambi meel kasta ku dhacay dambiili qabiil male haday dambiile heshay onba ay hayso hadda ninkii hal qof dilay ba oo dambiilaha lagu sheegay anugu yahay ma naqaan kaasaaba ka dambiyar dad gurigooda jeefo oo hurdaaye oo la soo guri oo waxba la weydiin habeen midoow la laay Soomaali meel ay ka dhacdo male hatta waagi burburkii oo isbeegsiga jiray hatta inta sida ma dheen tuuga jirtay baabuur baa dheer jirtay wax ka qaadan jiray dhaawac jirtay sida hadda dawlad lagu sheegay hadda jabhadii tuugada hatta waxa ka yeeshoon jirtay maamudku galmudug waxaan u jeedinayaa dambiilayaashii oo dadka laayay oo inay soo saarta waxay dhacay waa dhaceen wixii magacahuma oo nidaamhuma oo dawlad dara inay ka heshooto arinta wax ka qabato oo magaceeda dawladnimada ilaashato oo dambiilahay soo saarto waxaan dhacdo waa dhacda maxaa ka dambeeyay wax ka dambeeyay hadaa laga hagaajiyo waxba meesha muuqanaya laakiin maamul goboleedyada waa la joognaa oo kuwan ka dhalani waa aragnay maxkamada ay leeyihiin la xisaabtan bay leeyihiin wax kasta leeyihiin dhacdo waa ka dhacda dambiile waa la hira dambigiisa lagu qaada haduu dil yeeshaata lama arkan haafad dambiilaa wiligay ma arkin qoomiyad dambiilaa wiligay ma arkin haday qoomiyad oo dhan dambiile laga sheego halka ayaa degan luuqada ayaa ku hadla ba dadka lagu laay dadkan luuqad baa loo laay qoomiyad baa loo laay oo dambiile looma laayn saddex qof wada socoto dambi isku ma raacdo hadaa la soo qabto kii dambiile iyaga is sheegaya dawlad hadaa tahay waxa ka sugayni sharci iyo maxkamad iyo nidaam la soo maro waxa nagu la dhaqantay waxa jabadaba ka heshooto waxa koonfur galbeed la dirdaarmaya dhacdo meel kasta ka dhacda oo dibadda ka dhacda dalka ka dhacda meel kasta ka dhacda wixii dhici jiray wax kamid ah baa idin ku dhacay dulqaad sameey oo wada loo maro umara wixii nidaam u mara nin baa yiri qof kasta wixii kugu sameeyaa lagu sameeyaa in haduu ka rid ilaada laga rida haduu farga gacan ka gooy gacan buu ka gooyaa nin waa soo booday wuu hiri nin waxan ku shaqeeyay waa laga haraa nin dhaqanku ku shaqeeyay
lagama aarsadee waa laga haraa laguma dayto islaan musaafura dad musaafura umad kale waxba ogeyn intuu la qaribi lahay arintan shariga ha loo bandhigo dawladda leenahay oo federaalada leenahay meel isku imaadaan leenahay eebtaan galmudug kaligeed ha taaganaato koonfur galbeed waxa u jeedinaya ina wax ka daran aan sameyn eebtaan galmudug kaliya ha la taalo iyada lagu sugayay jawaabtooda